kan kaga hadlaynaa dad dhalinyaro ah iyo waxgarad kana tirsan beesha dhulbahante ama beesha Maxamuud Garaadba waxa jirta in ay ka hadleen niman oo yiraahdeen anagu hadaan nahay beesha Maxamuud Garaad masiir gaar ah iyo dan gaar ah marka waxaan halka ka cadeynaynaa annaga dhulbahante waxa loo daba fadhiyaa taladiisa waa la yaqaanaa waa dad odayaal ah garaada ah isma ah أنا أقول هذا يافك لأنيرة إيو وحن كهذا يعني من كهالك يمي يري وحن كهذا لنا أما مثلا أفك محمود جراد وحن الله هاي دول بحنته وقارن وقبيل بلارن كلا فرفور يا كلا تشبيل ما تضيع رماها دول بحنته هل مل بيحكوا وحنا كوي هاي تلدي سنة مل بيكوا وحن التاجر يا هذا الكي حل بانك سعيد حاجة فيني والله دول بحنته وهل مد كاسان تاجر سنة هاي annagoo ah dad dhalinyaro ah ama hadeer laba oran karo dhalinyaro ma nihiin waa odayaal bay yihiin deegaankana kamid ah waxa dhacday in habeenna dhaweydaan meediyaha warar aan suluugnayn ka aragnay wararkaasna kuwa qanciyay ma ahayn sidaa daraadeed waxaanu leenahay annagu la fikir ma nihiin dadka dhulbahantana in la kala gurguro ama la kala qoysqoyseeyo wax macna u goynaya ma jiro cadawguna uu ka faa'iideysanayaa oo uu ka helaya marka waxay ku wacan tahay in dhulbahanta unitnimada buu wax ku jiraya unitnimada loo daayo siyaasadda iyo nidaamkeeda cid maraysaana ay meeshay leedahay marto laakiin inta 10 nin meel gasho inay tiraado beel baanu matelayna inta yada meesha 10 nin waliba qabiil buu ka tirsan yahay nin rag aqalkoodii joogay ma jiraan rag ma garanaysaa arinta shaqo ku lahaana ma jiraan haddana magacii waa lagu been abuurto wax la magac reer hebel baan magacii la sheeganayay la go'aankaas oo gaaray maano kamidna sida daraadeed waxaanu leenahay arinta anagu wixii dhulbaanta goobaanu goonaa siyaasaduna dhulbaanta meel bay maraysaa wada hadallada iyo heshiisyada iyo negotiationka Soomaaliland iyo Khaatumo ku wada jira waa soo dhaweynayna wixii ka soo baxana in la nasiibsado waan